dastuurka ku-meelgaarka ee hadda jira waxyaabaha la doonayo in laga saaro waxaa ka mid ah qodobka sheegaya af Soomaaligu waa maay iyo maxaa tiri kulanti wanaagsan dhageystayaasha iyo daawadayaasha aynu jecelnahay meel kasta aad ka joogtaan dunida kusoo dhawaada barnaamij gaar ah oo aan uga hadlayno qodobada badan ka dhaliyay baraha bulshada maalmahan qodobkaas oo ah luqadda rasmiga ah ay leedahay dawladda Soomaaliya waxaa bilowday doodihii dastuurka in la ansixiyo looga soo horjeeday iyadoo la keensanayo marmarsiyooyin aan waxba ka jirin banaankana lala soo taagan yahay qodobada hortaagan in dastuurka Soomaaliya la ansixiyo waxaa ka mid ah caasimadda Soomaaliya iyo sharciga ay yeelanayso khayraadka dalka sida loo wadaagayo xuduudaha maamulada iyo luqadda rasmiga ah ee ay leedahay dawladda Soomaaliya dhammaan qodobadaasi iyo kuwo kale oo ay ka mid yihiin arrimaha siyaasadda awoodaha madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ayaa ka mid ah haddaba aniga oo ka eegaya dhinacyo kala duwan aynu soo qaadano qodobkan oo u baahan in si adag looga hortago waliba ciddii isku dayda in ay ishortaagto in la duldhigo awood sharci dastuurka ku-meelgaarka ee hadda jira waxyaabaha la doonayo in laga saaro waxaa ka mid ah qodobka sheegaya af Soomaaligu waa maay iyo maxaa tiri qodobkan ma ahan qodob dastuur noqon kara sababtuna waxay tahay afmayga dadka ku hadla lama dhihin Soomaali ma tihiin waxay kaloo muujinaysaa in ay yihiin dad la takoorayay oo dastuurku ilaalinayo sidoo kale waxay furaysaa buuq iyo khalkhal gelin dhinaca tacliinta dadka ku hadla afka mayga iyo kuwa kale ee aan ku hadlin waxayna abuuraysaa dib u dhac aad u weyn sababtoo ah marka la qorayo luqad waxay u baahan tahay 5 waxyaabood oo aasaas u ah sida maygu wax badan bay isaga mid yihiin maxaa tiriga waxa ay ku kala duwan yihiin ma ahan wax sida u weyn marka laga hadlayo dadka ku xeel dheer luqadaha iyo xeerarkooda waa mid caalami ah anigoon si toos ah u sharxaynin shantooda haddana si guud ayaan doonayaa inaan u sharxo oo mid su'aal uga keeno aynu ku hormarno ma jiraa nidaam xiriirsan oo ka duwan dhawaaqyada hadalka oo ay kaga fiican tahay lahjada mayga tan maxaa tiriga qodobka labaad ma jiraa qaab nololeed oo ay ku kala duwan yihiin dadka Soomaaliyeed ta saddexaad maxay ku kala duwan yihiin mayga iyo maxaa tiriga xagga eray bixinta tiradooduse ma la soo ururiyay ta afraad ma jiraa qaab badan oo ay ku kala hormarsan yihiin labadan lahjadood ee mayga iyo maxaa isticmaalka labada lahjadood marka loo eego ma jiraa tan hadda qoran waxa ay uga saameyn badan tahay ta hore u qorneed ee maxaa tiriga marka intaas oo laga soo tago haddana waxay wiiqaysaa awoodii ay lahayd luqadda Soomaaliga oo wax kasta waxay noqonayaan in meesha ugu hooseysa laga soo bilaabo sida u dejinta eray bixin caalami ah waxa kale oo imaanaya kharash fara badan oo ku baxaya dhinaca dhaqaalaha waxa galaya waqti aad u fara badan waxa kale aad u muhiim ah in hoos loo eego bulshada wax lagu baro labada lahjadood oo khilaaf joogto ah ka dhaxayn doona taasoo ah dib u dhac kale sida dhinaca aqoonta oo aysan isa soo gaaraynin iyadoo markii horeba lagu qabay dhibaato af Soomaaliga qoran in wax lagu barto oo dadka ku ahayd xabsi hadana haddii tan lagu daro nidaamka waxbarashada dalka dhaawac weyn ayaa soo gaaraya labadan lahjadood si weyn bay isu kaabayaan kaliya waxaa loo baahan yahay gaar ahaan wasaaradda hidaha iyo tacliinta sare in ay cilmi baaris rasmi ah ku samayso dhammaan lahjadaha kala duwan ee dalka ka jira eray bixintooda ugu waaweyn iyo kuwooda ugu yarjar sidii ay manhajka ugu soo dari lahayd sida mahmaayaha gabayada heesaha buraanburka iyo wixii la mid ah oo ay leeyihiin lahjadaha kale balse haddii xilligan la yiraahdo af Soomaaligu waa maay iyo maxaa tiri waa arrin kale oo muujinaya khalkhalgelin amni mid dhaqaale mid siyaasadeed mid bulsho mid aqoon
aqoon iyo wixii la mid ah laakiin haddii ay noqoto aniga maxaa tiri ma garanayo ee waa inaan lahjadeyda wax ku bartaa taasi waa xujo waxa kale oo aad ka shaqaynaysaa in aad samaynayso ishortaag isdhexgalka bulshada Soomaaliyeed sidaas darteed aniga waxaan si weyn u taageersanahay in qodobkaas meesha laga saaro marka laga hadlayo dhinaca ammaanka dawladda Soomaaliyeed lahjadahan kale ee dadka Soomaaliyeed ay ku hadlaan waxay u adeegsanaysaa dhinaca ammaanka iyo sirta dawladda haddii wixii oo dhan banaanka la soo dhigo la yiraahdo arrintu waxay noqonaysaa arrin fashil ah adduunyada qaab kale ayay wax isku fahansiiyaan oo ay ku wada xiriiraan oo isku afkartaan waa inaan ka duwanaana marka annagu waa inaan leenahay lahjad sir ah oo qaranka uu leeyahay oo arrimaha ammaanka loo adeegsado waa inaan leenahay dhageystayaasha iyo daawadayaasha aynu jecelnahayo maanta ay taariikhdu ku beegan tahay 13kii bishii 2023 barnaamijkeenu intaas ayuu inoogu ogyahay intaan mar kale hawada ku kulmi doono waa anigoo ah Maxamed Macalin Ismaan Oolman Minnesota USA دخلتهاي وهبارني على الكاتر هوري وهو شيء هوري حتى أدي دخلتهاي وهبارني على الكاتر هوري وهو شيء هوري ورود مرا هبوزي ورود مرا هبوزي كان فوقالي وحده ريادمي ورود مرا هبوزي ورود مرا هبوزي كان فوقالي وحده ريادمي حيث كي علي